Muuqaalkan waxaad kaga bogan doontaan faa'iidooyinka caafimaad ee sabiibka uu leeyahay iyo 10 cudur oo lagula tacaalo miraha sabiibka ee biyaha lala dhigay. Faa'iidooyinka caafimaad ee sabiibka uu leeyahay inta aan u guda gelin. Allahana abuuray ayaa ku mahadsan nimcooyinka uu ina siiyay iyo geed kasta oo Alla abuuray waxa uu leeyahay waxyaalo u gaar ah oo loogu talagalay khalqiga in ay ka faa'iideystaan ama daawo ahaan ay u isticmaalaan. Sabiibku waa miraha canabka oo la qalajiyay. Waxa uu yeeshaa dhowr midab sida dahabi, cagaar iyo madow. Miraha sabiibka waxay qani ku yihiin sonkorta dabiiciga ah, fiberka, xadidka calciumka iyo nafaqooyin kale oo muhiim ah. Wuxuu kordhiyaa tamarta, wuxuu iftiimiyaa maqaarka iyo timaha. Mid ka mid ah hababka ugu fiican ee sabiibka loo isticmaali karo waa in biyo lala dhigo kadibna la cuno biyihiisana la cabo. Sidoo kale waxaa lagu darsadaa cabitaanada dabiiciga iyo ansalaatada. Caanaha ayaa lagu karkarsadaa. Waxa kale oo lagu darsadaa burka laga sameeyo rootiga iyo wixii la mid ah. Miraha sabiibku waxay caafimaad badan yihiin marka inta biyo lagu dhigo habeenkii kadibna subaxii la cuno caloosha oo maran. Haddaba faa'iidooyinka caafimaad ee laga dhaxlo sabiibka biyaha lala dhigay iyo cudurrada lagu daweeyo. Tan koobaad, daweynta dhiig-yarida. Miraha sabiibka waxaa ku badan macdanta xadidka leh, sida daraadeed waxay caawiyaan daweynta dhiig-yarida. Waxaa ku jira xadid ku filan oo ka hortago dhiig-yarida. Tan xigta, wanaajinta aragga indhaha. Mirahan waxaa ku jira walxaha sun saarista jirka u qaabilsan ee loo yaqaano antioxidant, kuwa oo siyaabo kala duwan jirka u caawiya. Maadada phenolic loo yaqaano waxa ay ka takhalustaa xididada xorta ah ee free radicalska ee khatarta ku ah aragga indhaha. Sabiibka wuxuu ka hortagaa caadka indhaha fuulo iyo cilada macular degeneration loo yaqaano. Waxa uu xoojiyaa lafaha. Sabiibka waxaa ku badan macdanta calciumka, taasi oo muhiim u ah lafaha. Waxa kale oo ku jira maado kale oo lagu yiraahdo afka qalaad boron oo muhiim u ah koriimada lafaha iyo nuugista calciumta. Wuxuu ka hortagaa ama ka hortag u yahay cudurka lafa burburka ee ku dhaco haweenka dhalmaal deyska ah. Waxay cunista sabiibka ay caawisaa kordhinta cufka lafaha iyo ka hortagga xubnaha xanuunka ee arthritis-ka. Xanuunka kale ee loo yaqaan gout ee suulasha cagaha baraariyo ayaa ka mid ah waxyaabaha uu daweeyo. Tan xigta waxa uu yareeyaa aashitada. Maadooyinka potassiumka iyo magnesiumka waxay jirka ka caawiyaan inuu iska saaro sunta iyo dheecaanada halista leh. Waxay isku dheelitiraan heerka pH-ta jirka, taasi oo yareysa sunta dhiigga. Miraha sabiibka waxay hoos u dhigaan aashitada badan ee caloosha ee keenta laabjeexa iyo gaaska. Tan xigta, wanaajinta dheefshiidka. Sabiibka waxa uu qani ku yahay fiberka oo caloosha socodsiiya. Sabiibka biyaha lagu dhigay wuxuu u shaqeeyaa sida dawooyinka caloosha socodsiiya, isagoo ka hortag u ah calool istaaga. Waxaa loo baahan yahay 12 xabbo oo sabiib ah in biyo lagu rido oo habeen oo ay biyahaasi ku jiraan kadibna sabiibka iyo biyihiisa subaxda aroortii hore caloosha maran la cabo. Xoojinta difaaca jirka. Mirahan waxaa ku jira dhammaan nafaqooyinka muhiimka sida vitamin C iyo vitamin B oo caawiya dhisidda heerka difaaca, sare u qaadista hamiga kacsiga ama dareenka. Waxaa la aaminsan yahay in sabiibka uu siyaadiyo rabitaanka galmada iyo xawaaraha shahwada. Meelo badan oo caalamka ka mid ahina waxaa la isku karkariyaa miraha sabiibka, caano iyo sacfaraan si lagula tacaalo hamiyarida. Kordhinka miisaanka qofka. Sabiibka waxa uu u roon yahay dadka caatada ee doonaya in miisaankooda si dabiici ah kor ugu qaadaan. Waxaa ku jira borotiin iyo fitamiino caawiya koriimada murqaha. Noocyada sonkorta dabiiciga sida fructose-ka iyo glucose-ka ee ku jira sabiibka waxaa laga helaa tamar badan. Sabiibka biyaha lala dhigay waxa uu ka hortagaa tabar yarida wuxuuna kordhiyaa miisaanka. Waxa uu ka hortag u yahay urta xun ee afka. Miraha sabiibka waxay la dagaalamaan bakteeriyada afka waxayna ilaaliyaan nadaafadda afka. Sida daraadeed waxay baabi'iyaan urta afka. Sidee loo isticmaalaa sabiibka biyaha lagu raadiyay ama la dhigay? Sida ugu habboon ee loo isticmaalo sabiibka biyaha la dhex dhigay si looga dheefsado faa'iidada caafimaad ee ugu badanna waa in 8 ilaa 10 xabbo oo sabiib ah lala dhigaa koob biyo ah habeenkii kadibna subaxdii la isku shiido kadibna la cabo caloosha maran.
sabiibka waxa ku badan kaloriiska, sidaa daraaddeed waa in si xadid ah loo isticmaalaa si waxyeelo kale ay ka dhalan. Haddaba dhakhaatiirta iyo xeeldheerayaasha waxa ay intooda badan isku raafaqeen in buurnida iyo duubnida islamarkaana ka tirsan jimciyadda intooda badan Mareykanka ee la dagaalanka buurnida waxay shaaca ka qaadeen in miraha sabiibka ay leeyihiin faa'iidooyin caafimaad oo tiro badan. Waxay sheegeen in faa'iidooyinkaasi caafimaad ay ka mid tahay in sabiibka uu daweeyo qaar ka mid ah cudurrada jirka ku dhaco. Waxaa kale oo ay sheegeen xeeldheerayaasha sabiibka inuu u fiican yahay dadka islamarkaana ay hoos ugu dhacaan unugyada dhiigga cas oo xaaladda afka qalaad lagu yidhaahdo anemia. Sabiibka waxa uu jirka siiyaa tamar dabiici ah, wuxuu ka caawiyaa inuu jirka adkaysto ama uu adkaysto dhibka iyo daalka hawl maalmeedka. Sabiibka wuxuu daawo u yahay baa laleeyahay suuska oo ah cudur dunida oo dhan fara ba'an ku haya. Sabiibka wuxuu xoojiyaa wadnaha wuxuuna kor u qaadaa caafimaadkiisa. Waxa uu xoojiyaa caloosha iyo beerka. Waxa uu daweeyaa hunguriga iyo xabadka iyo kelyaha iyo sambabka iyo kaadihayska. Inta biyo lagu karkariyo oo lagu daro wax yar oo sokor ayaa loo adeegsadaa qufac in lagu dejiyo. Shubanka iyo saxaro adayga. Sabiibka marka la cuno wuxuu mindhicirada ka nuugaa dareeraha caloosha iyo mindhicirada ku jiro, sidaa daraaddeed wuxuu yareeyaa shubanka. Wuxuu ku caawiyaa cunada la shiiday in si aan dhib lahayn ay ku baxdo. Waxa uu sidoo kale sabiibka uu u wanaagsan yahay dhinaca kansarka marka aynu eegno. Sabiibka waxaa ka buuxa maaddo loo yaqaano catechins, taasi oo sun sare oo awood leh wuxuuna jirka ka saaraa sunta nooca loo yaqaano free radicals. Haddii ay jirka ku badatana la sheego inay sabab u noqon karto cudur kansarka. Dhowr sano waxaa la aaminsanaa in sabiibka uu yareeyo cadaadiska dhiigga, laakiin mar dhow ayaa arrintan lagu xaqiijiyay cilmi baaris iyadoo la arkay maadada potassiumka ee ku jirta sabiibka inay yareyso cadaadiska dhiigga. Dhinaca macaankana dhowr cilmi baaris oo laga sameeyay arrintan waxaa la arkay in sabiibka uu xakameeyo nuugista sonkorta ee jirka. Waxa kale oo markaasi la hubiyey in heerarka hormoonada kala ah leptin iyo ghrelin oo maskaxda uu sheego heerka gaajada iyo dheregta qofka in sidoo kale ay ka qayb qaataan. Gaaska haddii aynu isla eegno, haddii aashitada caloosha soo deyso ay ku badato jirka waxay keentaa xanuuno dhowr ah sida gastriga, laabjeexa iyo kala goysyada xanuunka. Sidaa daraaddeed sabiibka waxa uu yareeyaa laabjeexa iyo gaaska. Sabiibkan miraha sabiibka sidooda ayaa loo cuni karaa, waxaa lagu darsan karaa cuntooyin kala duwan, laakiin markii daawo ahaan loo isticmaalayo waa in sidooda lagu cuno ama cabitaan laga dhigto ama la shiido kadibna lagu qasto ama lagu karkariyo cabitaanada uu qofka cabayo, gaar ahaanna caanaha haddii ay noqon lahayd. Sabiibka sidaynu ognahay haddaba sabiibkan qaabka loo sameeyey waa la qalajiyey iyadoo qorax loo dhigay ama lagu qalajiyey mashiinada waxyaabaha qalajiyo. Wuxuu yeeshaa midabo dhowr ah, cagaar, dahabi. Sabiibka wuxuu jirka bini'aadamka u leeyahay faa'iidooyin badan oo caafimaad. Waxyaabaha kale ee la isku waafaqay waxaa ka mid ah in qandhada uu saaxiibka leeyahay. Sabiibka waxaa ku jira maaddo jeermis dila ah, sidaa daraaddeed waxay hoos u dhigtaa baa laleeyahay iyada oo la dagaalanto qandhada, jeermisyada iyo bakteeriyada jirka haleela. Intaa ayaan kusoo gabagabeynaya muuqaalkeena maanta. Inoo like-garee muuqaalkan haddii aad u riyaaqday. Boggayagana Facebookga waad soo booqan kartaa. Hase ahaatee laakiin muuqaalkan meel fog inoo gaarsiiyey, share ku qabo, subscribe garee haddii aad nagu cusub tahay. Wax badan ayaad ka daawan doontaan haddii Allaha awoodda laga helo.